magacaygu waa Bashiir Xaaji Cali oo ku magac dheer Jamaal musharax madaxweyne dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maanta waxaan imi xaruntii aqalka sare oo ay ka socoto diiwaangelintii musharaxiinta madaxweyne haddii Ilaahay ka dhigo waan qaatay shahaadadii si wanaagsan waa laygu soo dhaweeyay runtii waxaan sugaa waxa weeye 15 May inaan ama ka hor bisha 12keeda iyo 12keeda inaan jeediyo hadal jeedintii iyo ajandahaygii aan ka hor jeediyo labada aqal baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kadibna aan ka qayb galo maalinta ugu dambaysa oo ah May 15keeda oo ah maalinta ugu dambaysa ee la dooranayo madaxweynaha runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan warbaahinta iyo madaxda aqalka sare iyo guddiga doorashada oo halkan si fiican igu soo dhaweeyay